safiirka Soomaaliland u fadhiya waddanka Jabuuti ayaa ka qayb galay munaasabad uu dhagax ku dhigayay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti cusbitaal weyn oo dhinaca caymiska dadweynaha waddanka Jabuuti. munaasabadan uu ka qayb galay safiirka Soomaaliland u fadhiya waddanka Jabuuti Ambassador Cabdifataax Saciid Axmed ayaa sidoo kale waxa iyaguna ku sugnaa danjirayaasha dalalka shisheeye u jooga waddanka Jabuuti. safiirka Soomaaliland intii uu ku sugnaa xafladaasi dhagaxa lagu dhigayay dhakhtarka weyn ee dhinaca caymiska ayaa wuxuu la kulmay safiirra kala duwan sida safiirka waddanka Japan u jooga dalka Jabuuti, safiirka cusub ee dawladda Kenya u soo magacaabatay waddanka Jabuuti. xiriirka saddexda dal ee Jabuuti, Soomaaliland iyo Kenya ayaa haatan aad u wanaagsan. maxamed jaamac waale, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Jabuuti.